siyaara sanadeedkii 13aad ee Allah ka raali noqday weligii Ilaahay ee Sayid Aaba Sheekh Maxamed Xuseen Sheekh Cabdi oo loo yaqaano Sheekh Maxamed Raamoole ayaa lagu qabtay magaalada Makina Road gobolka Kuala ee wadankan Kenya. siyaarada ayaa ku bilaabatay quraan akhris socday muddo 22 bari oo sayidka loo akhrinayay qimooyin badan oo quraanka kariimka iyo awraad kale. quraan akhriska kadib waxaa la guda galay barnaamijka siyaarada Allah ka raali noqday Sayid Sheekh Maxamed Raamoole. siyaarada waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jamaacadka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee ku sugan magaalada tan Makina Road iyo nawaaxigeeda. culimo waaweyn oo ka kala timid gudaha dalka Kenya, Tanzania, South Africa, Ethiopia, Uganda, Soomaaliya, Turkiga, Sweden iyo qaar kale oo ka mid ah wadamada caalamka. qaybihii kala duwanaa ee jamaacadka ka soo qayb galay siyaarada ayaa halkaasi ku soo bandhigay xalaqaadka xuska Alle oo aad loo jeclaystay.
TV-ga caalamiga ah ee Al-Maxamuudiyya oo qayb weyn ka qaadanayay tabinta siyaarada ayaa la hadlay qaar ka mid ah culimadii siyaarada ka soo qayb gashay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaliin. Waxaan ka soo galay magaalada Nairobi anoo albeedka rasuulka. Waxaan u nimid siyaarada weyn sheekhana rabbina Sheekh Maxamed Raamoole ziyaaradiisa u nimid inaan ka qayb galno. Culamo badan ayaa ka soo qayb gashay. Meel kasta dunida caalamka adduunka laga yimid magaalooyinka qaxootiyaasha ilaa dowlad Itoobiya, Soomaaliya, Kenya, dibadda meel aan laga iman caalamka adduunka qaaradaha adduunka ma jiraan ziyaaradiisa u nimid. Ziyaarada xaaladeeda aad bay fiican tahay galabta barnaamij weeyaan oo sabti ah caawana waa dhafarkii dariiqooyinka saarkaysaan dariiqada weysiya dariiqada Axmediya والزيلعية والرفاعية لما أي طريقة نقلت قصة قبل برنامج زيارة شيخنا وسادنا شيخ محمد رامولي زيارة أنا وأنا وصل تري ليل إلى مدوقش وهاي كنت الله قارسة يا لقى حكم وادقمو بقول لحدن إلا كيلومتر أي حق قبلها كجيرتا قارس زيارة مركز sida ay u socoto martiqaadkeeda xafladaheeda aad iyo aad maartay aad bay warmarsan tahay Allah noogu haayo aafada Allah ka hayo maya ziyaaradani maalinta ziyaarta sheekhu ugu horreysay lagu dhigo makiina ayaa ugu horreysay oo habeenkii ugu horreysay ziyaarta ugu horreysay la kowsaday weli kama maqnaan anigu waxaan ka mid meel la yiraahdo Kakuma waa xuduudda dalkan Kenya iyo dalka Suudaan waa galbeedka Kenya baan ka ziyaarada ugu imid ziyaarada ma sha Allah waa arkaysaa waxa laga soo aaday oo laga soo qayb galay reer Tanzania waxa ka soo qayb galay Uganda dadka yimid Ethiopia Soomaaliya iyo America dad xataa ka yimid maantay waana waxa la oran karaa sanad walba sanad ka dambeeya way ka sii cajaa'ib badan tahay oo kor u sii baxaysa waxaan meeshaan waxa xaqiiqa ah waxay nafteena ku yeelaysaa taafiir iyo saameyn aakhirada xasuusanayno markay sidaa tahay marka ziyaaradii waa in suuqashadaan waa amro waa ma'muur waxa halkaan loo taagay xalaqaadkan waa xus ilaahayna wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wadaakir la kathiran wa zaakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima marka ilaahay wuxuu yiri alladheed kullu qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim qaybtaan marka waa iswaadi waa adkaartiga digriga oo qiyaam ah waayo waxa dhagaheena ku soo dhacaya hadda u badan waa Allah la ilaha illa Allah oo ah afdalu dhikri ah ilaahay wax lagu xusay u fadhi badnaa afdalu ma qultu أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله شيء وفل يا برنامج بيمرك واحد من واقع وزير الله سبحانه وتعالى يا آخرنا حسوسني يا علماء يا درك صالحين أنصار فوقني Sheekh Anas Sanjan oo ah caalim daaci sunni ah oo u dhashay wadanka Turkiga siyaarada ka soo qayb galay oo la hadlay TV-ga caalamiga Al-Maxamuudiyya ayaa ka waramay dareenkiisa farxadeed ee ku aadan siyaaradan weyn ee uu ka soo qayb galay. Burada gerçekten bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum, şeref duyuyorum. Maşallah birbirinden runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idinla joogo halkan sharaf bayna ii tahay maasha Allah wajiyo qurux badan iyo caruur qurux badan oo mid walba midka kale ka qurux badan yahay baa jooga halkan si fiican baad ii marti qaadeen aad baan idinkaga mahad celinayaa runtii aniga qudhayda wax badan baan ka faa'iiday oo i dhiirigeliyay alxamdulillaah haddii ay ahaan lahayd mid ruuxi ah iyo mid maadi ahba ani ahaan waxaan u jeedaa muslimiinta adduunka meel walba ay dunida ka joogaan inay u dhaqmaan hal ujeedo oo ay yihiin hal mid inkastoo meelaha ay kala joogaan ay kala duwan yihiin haddana qalbiyadooda waa mid qura waxaynu nahay walaalo ilaahay midnimadaas nagama dhantaalo kuwa raba inay midnimadaas jabiyaan ilaahay fursad ma siiyo waxaan rajaynayaa inaan fursad u helo sidaan diinta ugu adeegi lahayn si geesinimo iyo sharciyad leh insha Allah runtii jawiga meeshan aad buu u qurux badan yahay waxaana ku yaala halka maraakiis waaweyn waxaa kaloo jira jawi waxbarasho oo wanaagsan si kale haddii loo dhigo meeshan waa meel aad u qurux badan oo dib u dhisi doonta aakhiradeena alxamdulillaah dhammaanteen ilaahay cibaadada aan samaynay iyo ducooyinka ha naga aqbalo Allah cümlemizden bu ibadetleri, yapmış olduğumuz hayırları, buradaki ibadetleri, duaları kabul eylesin inşallah. gabagabada munaasabada siyaarada waxaa soo xiray alcalaamatul murabbi as-sayyid Aaba Sheekh Maxamuud Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sayid Yuusuf isagoo ducay mahad celin ba u jeediyay dhammaan dadka ka soo qayb galay siyaarada. سادة الكرام يا إخوة الأعزاء وحنسوق اختتامكي
زيارة وينيد الحورية الكبرى لسيدنا وشيخنا شيخ محمد رامول سر الله رضي الله عنه وقدس الله سره. ما شاء الله تعالى حلي والدفري إلى ما أنت توحيدك نعمتي خيرك الوصول حجرين أنت سواء حاضرت وحلنا جزاكم الله خير لهذه كرامة أكرمكم الله كرامة الصالحين. إذنك يا أولادي إني ذريتي إن كل صالحين إلى الله نقدر مؤمنين تمنات الصالحين وناسنا الله نقدر الرمين الدولة خلاها جاجي وشاخذي أشرافتا نود عين دور إن شاء الله تعالى شرف على حبيب أيها دعين إن شاء الله تعالى. inta xuskan iskugu timid dambigoodiiyo kii waalidkood ba Allah dhaafo inta ka soo qayb gashay ee meel kasta ka timidna ilaahay waxaan ka barinaa iyagoo nabada dhulkooda inuu alla ku celiyo naxariistii janna Allah ina siiyo bishaan iyo bisheeda kaleba nabad Allah inagu gaarsiiyo nimcadanadii iyo barwaaqadanadii iyo wadankii nabad Allah ka dhigo cimriganaga Allah dheereeyo ilaahay idinka jiilka soo socdana kuwa barakaysan Allah ka dhigo annaguna قاتم خير الله ينسي قاتم خير الله ينسي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فاتح sanad kasta xilligan oo kale ay halkan ka qabsoontaa siyaarada Allah ka raali noqday wiliga Ilaahay ee Sheekh Maxamed Raamole waxaana siyaarta ka soo qayb galay dadweyne kala duwan oo aad u fara badan oo ka kala yimid daafaha dunida xasan maxamed samatar awke TV-ga caalamiga al-Maxmuudiya Makiina Road